Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaynu barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa dhowrkii nin ee muslimka ahaa aasaasayna cilmiga maadiga qaybihiisa kala duwan ay reer galbeedku maanta ku faanayaan, sheegayaanna inay iyagu dunida kusoo kordhiyeen, innagoo nin walba taariikhdiisa si kooban u dul istaagi doona. Sababtuna waa inaynu muujino in aysan reer galbeedku cilmigan maadiga fikirkiisa aysan lahayn ee ay kasoo koobiyeeyeen culammadii islaamka ee mufakiriinta ahayd. aynu toos u guda galno barnaamijkeena maanta. caalimkeena koobaad maxamed idriis al-qurdabi xasan al-sibdah wuxuu ahaa caalim ku takhasusay samaynta daawada, cilmiga juquraafiga iyo cilmiyo kale oo tiro badan. taariikhdu markay ahayd 1134 wuxuu soo bandhigay boqorkii ka talinayay Sicily ee Rojankii labaad sawir muujinaya qariiradii dalalkii uu safarka ku kala bixiyay. sidoo kale wuxuu leeyahay kitaab weyn oo uu qoray 1154 miilaadiga oo la yidhaahdo Nusatu Mushtaaq. wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyay ee aasaasay sawir gacmeedka qariirada ee afka qaar lagu yidhaahdo map. aynu ka gudubno maxamed idriis oo ahaa alifiyey khariirada. caalimkeenii labaad madiicu samaan abulcisi bin ismaaciil aljazari, injineerkii iyo alifiyey aaladaha maanta iskood isku dhaqaajiya sida matoorada iyo qalabada gawaadhida ee iskood iskugu wareega maantana loo yaqaano robot. aqoonta heerku ka gaadhay awgeedna waxa kale oo aasaasay saacad qaabka maroodiga oo kale. wuxuu ahaa nin xisaabiye muslim ah, aadna u fikiri jiray. aaladihii uu alifay maanta waxaa laga isticmaalaa qaar ka mid ah wadamada kale ah Suuriya, Ciraaq iyo Iiraan. wuxuu hal abuuray qalabkan qarnigii 12aad oo ay taariikhyahanadu ku magacaabaan casrigii dahabiga ah ee muslimiinta. caalimkeena saddexaad Cabbaas ibnu Firdaas ibnu Wardaas wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyay isku dayay inuu duulo, wuxuuna samaystay maryo iyo suuman uu ku duulo sida shimbiraha hawadana uu ku galo. wuxuu ahaa injineer, gabyaa iyo dhakhtar. markii taariikhdu ahayd 852 ayuu soo xidhay qalabkii uu gacantiisa ku samaystay, wuxuuna iska soo tuuray minaaradii dheereyd ee masjidka Qurduba. isku daygaasna uu ku fashilmay, dhibaato soo gaadhay. isku day labaad oo uu sameeyey ayuu muddo dheer hawada sabeynayay, aakhirkiina uu soo dhacay wuuna allaystay. waana halka laga keenay samaynta diyaaradaha. caalimkeena afraad waxaa lagu naanaysaa shahiidkii cilmiga Diyaa-uddiin Cabdalla bin Axmed al-Malqah. wuxuu ku caanbaxay magaca ibnu Baydaar. wuxuu safar ku kala bixiyey wadamadii islaamka si uu u barto dhirta ka baxda wadamadaas, iyo in uu kala barto dhirta teeda sunta ah, daawada ah iyo teeda si kale loo isticmaali karo. wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyay ee kitaabka qoray dhiraha, kitaabkaasoo lagu magacaabo al-jaamicu limufradaati al-adawiya. kitaabkan oo noqday mid laga tixraaco noocyada kala duwan ee dhirta, wuxuuna ku sharaxay kitaabka 1390 geed wax sare u dhaafaya. wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyay ee helay 100 geed oo dhir daaweed ah. caalimkeena shanaad wuxuu ahaa caalim loo daba fadhiisto madhabka shaaficiga iyo luuqadda carabiga, ahaana dhakhtar caafimaad. sidoo kale wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyay ee sharaxa xubnaha jidhka iyo sida ay u shaqeeyaan, iyo inay milixdu jidhka waxyeelayso, dhiiggana kiciso. dhacdadaas oo ay Soomaalidu tiraahdo dhiig kar. waa kuma ninkaasi? waa Calaaudiin Abu Aclaa Cali bin Xasan al-Qarshi, kuna caanbaxay magaca ibnu Nafiis. wuxuu qoray kutub uu kaga hadlayo luuqadda carabiga iyo cilmiga falsafadda. kutubtu qoray waxaa ugu caansan kitaabkiisa lagu magacaabo Sharxu Tashriicu al-Qaanuun. caalimkeena lixaad wuxuu ahaa ikhtiraaciyey ama alifiyey ugu horreeyay ee sameeya kaamiro wax sawirta. wuxuu ahaa injineer iyo xisaabiye, yaqaaniina cilmiga falaga ee xidigiska iyo cilmiyo kale oo aynan halkan kusoo koobi karayn. waa xasan ibnu haytham. ibnu haytham waxaa kaloo wax ka yaqaanay cilmiga aragga, wuxuuna ka qoray kitaab lagu magacaabo Kitaabulmanaadir. kitaabkan oo ay aad u tixraaci jireen digtooradii reer Yurub ee waqtigaas ku baraarugay cilmiga. ilaa maantadan aynu noolnahayna waxay u noqotaa dhakhaatiirtu kitaabkaas. ibnu haytham aasaasiyey kaamirada.
caalimkeena toddobaad Abu Zakariya Yaxya bin Maxamed bin Axmed kuna caanbaxay Ibnu Calwaan wuxuu qoray kitaabkii ugu horreeyay ee arrimaha beeraha iyo falashadooda, waana kitaabka lagu magacaabo Kitaabul Falaax. wuxuu kaga hadlay kitaabka noocyada kala duwan ee dhirta la beerto. wuxuu takhasus ka haystay cilmiga beeraha, abuurista dhirta iyo xanaanayntooda. ugu yaraan 530 geed oo la beeran karo ayuu kaga hadlay kitaabkiisaas. caalimkeena sideedaad waxaa ninkii ugu horreeyay ee alifa aaladaha dadka lagu qalo ama lagu talo qalinka ka bacdi. wuxuu qoray kitaab lagu magacaabo At-Tasriif liman cajaza can at-ta'liif oo 5 qarni oo xiriir ah laga tixraaci jiray arrimaha qalinka ee bini'aadamka lagu sameeyo. waxaa ninka qura ee helay daawada kansarka isagoo ku guuleystay in uu ka daweeyo sababna u noqdo dad badan. caalimkeena sagaalaad Maxamed ibn Muusa al-Khawaarsimi oo ku caanbaxay al-Khawaarsimi waxaa maskaxdiisa ku soo kordhisay xisaabta aljabra. wuxuu qoray kitaabkiisa caanbaxay ee lagu magacaabo Al-Mukhtaru fi Xisaab al-Jabra wal-Muqaabala. wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee kala saaray cilmiga xisaabta iyo cilmiga aljabraha, waana aasaasaha cilmigan cusub ee aljabraha maanta la adeegsado. waxay qireen reer galbeedku aljabrada la'aanteed in ayna maanta shaqaysan tiknoolajiyaddu, internetna hadalkiisa la daa. waxaana lagu maamusay magaca aabaha cilmiga kombuyuutarka, sababtuna waa cilmigu kaga hadlay kitaabkiisa ee la faa'iidaystay. caalimkeena tobnaad ee aynu kusoo gabagabaynayno barnaamijka. nashqadeeyihii iyo farshaxankii dhismaha waa Micmaaru Sinaan. injineer Sinaan waa dhisihii masjidka la yidhaahdo Shahisaad ee Istanbul ku yaala. ilaa maantana lala yaaban yahay nashqadeyntan sida uu u dhigay. waxa kale oo uu dhisay masjidka ugu caansan Turkiga ee Suleymaaniya. dhismayaashaas oo ku cadeynaya inuu ahaa nin ku sarreeya nashqadeynta dhismaha, wuxuuna dhisay 360 dhismayaashaas oo ilaa maanta loo soo dalxiis tago.